السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلا وعنا ونكسن صاحبي كسروا هذا وربحين جارة أو أن مركا كو يدونو حالة كلا دوان مركا كسعودة قبل كجدو farmaajo oo lacag iyo xilba u ballan qaaday Cabdirashiid Janan iyo Madoowe oo dhaawac halis ah oo markaasi soo gaaray iyo sidoo kale madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo isaguna qorshe cajiib ah markaasi damacsan. halkan waa Wamo News. wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan iyo taliyaha daraawiishta Jubbaland Colonel Abbas Ibrahim Gurey ayaa warar aan helay waxa ay sheegayaan in dhinaca dawladda ay ku biiri doonaan saacadaha soo socda. waxa markaasi loo ballan qaaday lacag aad u fara badan iyo sidoo kale xil. waa maxay xilka loo ballan qaaday? imise ayay gaaraysaa lacagta marka la siinayo wasiir Janan? maxaa ka jira in Axmed Maxamed Islaam uu markaa qorsho damacsan yahay? ma dhaba in Axmed Maxamed Islaam uu heshiis la qaadan doono madaxweyne Farmaajo? maxay tahay sababta ay u heshiiyeen Farmaajo iyo Janan? yaa wado abaabulka lagu soo dhaweynayo wasiir Janan? xogahaasi oo dhameystiran ayaad ku daawan doontaan muuqaalkan. fadlan waxaan ka codsanayaa in marka hore aad like iyo share iyo follow aad dhahdo muuqaalkan, haddana aad share gareyso. waad mahadsantihiin. aynu ku bilowno sida aanu markaa helnay oo warar kala duwan ay markaasi inoo xaqiijiyeen. wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Maxamed Xuseen Xasan Janan iyo xubno ka socda hay'adda nabad sugidda ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa wada hadal u socday, waxaana ay gaareen heshiis. sida ay labada dhinac ay ku heshiiyeen waa Cabdirashiid Janan oo isagu ciidan iyo sidoo kale hub markaasi la degnaa xero military ku taala duleedka Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa u wareegi doona magaalada Balad Xaawo, iyadoo Balad Xaawo uu markaa isaguna ay ka baxeen ciidan soo dhaweyn doona Cabdirashiid Janan. warar soo baxaya waxa ay sheegayaan qadka telefoonka ay ku wada hadleen Cabdirashiid Janan iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa waxa markaasi Axmed Maxamed Islaam uu markaasi u sheegay in hub iyo ciidan uu leeyahay ay Jubbaland markaasi ay u qorsheeyay in ay tagaan Dobley. sidaas oo kale Janan ayaa Axmed Maxamed Islaam u sheegay in uusan sii wadi karin dagaalka iyo hardanka kala dhaxeeya dawladda, sidaas awgeedna uu qaadayo wadaxaajood iyo sidoo kale in ay tahay inuu ku biiro maamulka markaasi gobolka Gado ka jiro ee markaa taageera madaxweynaha uu muddaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida uu ku talagal ku yahay taliyaha ciidanka lugta ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi iyo xubno kamid ah xukuumadda xilkeedu dhamaaday ayaa u safraya Gado, waxaana markaa wararku ay sheegayaan in iminkaba ay qaarkood halkaasi ay sii tageen, qaar kalena markaasi la sugayo. sidoo kale Fahad Yaasiin taliyaha ciidamada nabad sugidda ayaa isaguna safarkaasi wehelinaya oo isagu markaa lagu soo dhaweynaya magaalada Balad Xaawo. wasiir Janan ayaa January 2020 waxa uu markaa ka baxsaday xabsi markaa uu ku xirnaa oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. waxaana waxay xilligaasi ka dambeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo saldhig ciidan oo ku yaala duleedka Balad Xaawo ee gobolka Gado. xogta ay heshay Wamo Media News waxa ay sheegayaan in lacag iyo sidoo kale xil culus loo ballan qaaday, isagoona intaasi loo sii dhaafsiiyay in markaa
la siin doono lacago malaayiin ah. lacagta aan la cayimin waxaana markaasi la sheegay inay ku dhowdahay 1 milyan oo dollar oo iyadu markaasi ay sii raacsan tahay in loo ballan qaaday gudoomiyaha gobolka Gado sida markaasi dawladdu ay u ballan qaaday Cabdirashiid Janan. tani ayaa waxay noqonaysaa mid walaac weyn ku dhalin doonta Jubbaland waxaana taasi markaa ay muujinaysaa in gacanta markaasi ay ka bixi doonto gobolka Gado. dowlad goboleedka Jubbaland waxay iyaduna ay qorsheynaysaa in ay iyaduna ay qorsho ama istiraatiijiyad cusub ay markaa soo bandhigto iyadoo markaa la damacsan yahay in halkaasi la geeyo saraakiil aan markaasi la cayimin isla markaana mas'uuliyiin halkaasi loo magacaabi doono. ilaa madax banaan ayaa sheegaya in ciidankii hore ee ka barbar dagaalami jiray qaarkood Janan ay u jiheysteen degmooyinka ay ka yimaadeen. gaadiid cabdibilayaal ah iyo sanado hub ah ayaa la tilmaamay in marka uu iibsaday Janan ka hor inta uusan ciidanka aysan ka xumaan uusan wareejin qaar ka mid ah gaadiidkii ay lahayd dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa sidoo kale la sheegay gaari Jubbaland ay lahayd marka isagu ahaa cabdibile in marka Mandheera uu ku gatay Cabdirashiid Janan isla markaana uu akoonka ku shubtay lacagtaasi. heshiiska Villa Soomaaliya iyo Cabdirashiid Janan waxa uu qayb ka yahay hardanka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale dowlad goboleedka Jubbaland. caqabadaha waaweyn ee la filan karo ayaa ah in gobolka Gado ay sidaas gacanta ugu bixi doonto. ilaa ay hadda ma hayno war ka soo baxay dhinaca Jubbaland oo ay kaga hadleen qadiyada Janan iyo wada hadalka uu la furay dowladda federaalka. Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa markaa dad ku dhow markaasi aan la xiriirnay waxa ay diideen inay ka hadlaan xogta markaa ku saabsan arintan. saameyn weyn ay ku yeelan doontaa xitaa Siciidani haddii Gado ay gacanta markaasi ka baxdo. waxaana Siciidani ama dowlad goboleedka Puntland ay mataano markaasi la tahay dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa dhinaca siyaasadda markaasi ka muuqan doona in markaa ay dhinac miisaanku markaa uu u batay. xiriir aanu markaa la sameynay saraakiil u dhow wasiir Janan iyo sidoo kale wasiirka ayaa waxa ay diideen in jawaabo ay markaasi ka bixiyaan arintan. wicitaan ayaanu sameynay telefoonadu ay qaban waayeen waxaana markaa soo baxaysa in heshiisku dhamaaday isla markaana Janan shacab kala duwan iyo sidoo kale odayaal dhaqameed balad xaawo markaasi ay ku sugan yihiin. arintan iyo sidoo kale siyaasadda iminka taagan ee u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya mucaaradka dhinaca iyo sidoo kale dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland maxay ku soo kordhin doontaa maxayse ka bedeli doontaa hardanka markaasi socda ee ka socda gudaha dalka Soomaaliya. saaxiibadeena qaliga ah guud ahaan waxaan halkaas ku soo afmarinaa warbixintii gaarka ah ku eegaynay heshiiskii dhexmaray wasiir Janan iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya. fadlan haddii aad channelkan ku cusub tahay like saar iminka oo share ku qabo isla markaana la wadaag asxaabtaada. maxay kula tahay fikirkaada ka dhibo waana ku mahadsantiin daawashada muuqaalkeena.